نوعية ما كلك ugu scholarship maxaa loo baahan shuruudu maxay tahay iyagu maxay rabaan qof noocee waxay iyagu shuruudaha way soo raacinayaan scholarship kaas waxaan u baahanaa intaas oo qof da'doodu waa inay inta tahay numberkaas aan u baahanahay intaas wadamadaas aan ka rabnaa shuruudahaas aan ku soo xulanaynaa qof waa in waxa haysta marka criteria marka akhrido macnaha requirement-ka adiga laga rabay kolka akhrido ee wada tigarayso waxaad haysato kadib scholarship kaas waxa weeye samid garay midda labaad adigu marka waxaan maadaama lacag oo kugu soo qorayn inaad buuxiso inuu ka rabo waxa weeye iska samid garay scholarship ka buux anigaygan 12 scholarship baan waayay oo aan ku fashilmay adu kii 13aad buu ilaahay ugu asto marka waxaad sameeynaysan buuxiya laakiin marka ugu horeysa documentigaaga ma ku diyaarsan yahay passport-kaaga ma ku diyaarsan yahay ma ku diyaarsan yahay waxa weeyaan application letter-kaaga CV-gaagi ama warqadii warqadan cod magaraysa ama motivation letter-ka aan nidhaa ma ku diyaarsan tahay marka waxa weeyaan wixii kale ee su'aalaha qabtaan haddii ilaahay yiraahdo waa dhankiina u soo wareejinaya waxaan rabaa hal su'aal muhiim ah ku ardayda Soomaaliyeed aad uma dhagan nugla inay Ingiriiska sidiisa iska dhisaan basic qofka asagoo raba copy best iyo play يعني جامعة ما لقى survive كرا قف كأسوان بسنين أو إيميل قريس قرني عدا سؤال في عويان أنت بان اللي يريد إنه أنت أقول بدن واحد وين إنجليزك أو لو قد أو ده أقول بدن واحد أي كوب حيان أي تحيوك مساران مركز لو قد كو قف إنه مقرس آيلتس أما واحد كله ده هايستا مهم جامعة بدن وكوب حرين بجرا سلامنا كلام ده بل يرفع بدن صح بدن وان بقرت الآيلات يتواصل منا أن كتجن أو English proficiency جامعة أتك بحضي إن الإنجليز وحكو برات يا ورقة عدين كوكورية ورقة عدين ده حكو كورية سكو عدين إن الإنجليز وحكو برات ومثل لبعض جامعة مركز بوحنس scholarship مركز بوحنس وأنا أكتر إنجليز معناها اللغة يجوا محير ربان واحد كهربان آيلتس بكهربان ما توافل بكهربان